guddiga dhinaca garsoorka u qaabilsan waa guddiga garsoorka ee Soomaaliya hadda ka shaqeeya oo uu madax u yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa maanta shir jiraayad oo ay ku qabteen Muqdisho waxay kaga soo horjeesteen go'aamo laga soo saaray shir looga hadlayay garsoorka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee Soomaaliya oo dhawaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxay sheegeen hadaba guddiga in hay'adaha waaweyn ee dawladda sida fulinta sharci dejinta iyo garsoorka ay kala madax bannaan yihiin waxaana ay ku doodeen in wasaarad kaliya oo ka tirsan xukuumadda aan sharci ahaan khalad tahay in garsoorka uu hoos tago waa sida hadalka ay u dhigeen wariyaha BBC-da Maxamed Ibrahim Macalimo ayaa ka qayb galay shirka jiraayid ee guddigaasi adeega garsoorka warbixintan ayuuna goor dhaweyd nooga soo diray gudoomiyaha maxkamadda sare Abukaata Ciidiidilka Xanaf oo hadalka furay ayaa sheegay in muddooyinkan ay soo badatay in hoteelada la isugu geeyo dad aan ehel u ahayn nidaamka cadaaladda Soomaaliya oo ay ka hadlaan garsoorka waxaana uu tilmaamay in dawladnimadu aanay ku socon karin hab NGO kala ah shirarka badan dawladda lagu qabanayo dad badan la isugu keenayo lagu ururinayo laga leeyahay ka hadla garsoorka oo aan garsoorkuna ku lahayn waxaan u aragnaa inay tahay baroogta ceesaanka ugu oo maxay in garsoorka la hoosgeeyo wasaaradda cadaaladda ujeedada oo dhan laga leeyahay ee roogta la leeyahay wax wada loo sameynaya si garsoorka u hoostago wasaaradda cadaaladda taasina wax soconayo oo suura geli kara maaha waxaanu leenahay oo dalku dhistay dastuurkaasi wuxuu leeyahay hay-adaha qaranka ee dawladdu way kala wada madax bannaayeen maaha waxaad arkaysaa NGO dawladnimada looma maamuli karo mana ku socon karto hab NGO gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ku eedeeyay in sida uu hadalka u dhigay sheegta xiriiryaha guud ee qaranka inuu yahay inaad u dheereeya oo ku milmay shaqaalaha wasaaradda garsoorka oo uusan lahayn sifooyinkii garsoore uu lahaa isagoo intaa raaciyay in dastuurka hadda jira aanu ku qornayn waxa la yiraahdo xiriiryaha qaran balse lagu cadeeyay garyaqaanka guud waxaan qabnaa inuu ku hadlayo afka wasaaradda بمعنى كلمة أفضل وزارة المقاطعة وزارة الفايدة طبعا وسيلة المسؤول بتاع عدالة الزجاج يرتعب وحين كانت وعرق هذا لو حنا أرجنا يسوي كسره وهي ولا شيء وزارة المقاطعة محكمة هذيك صوت ما بقى وسيلة ملية وزارة الهوستة حدودنا هي وزارة الهوستة ومرة وسيلة مرجع تشوفه ومسيرتي سبوعنا هذا يا رب حولنا ولا وسيلة ولا هذه كسورة لكن أنه وحنا رواية واحدة يقول تعالى السورة حتى النبي يقول يلا هذا ما كنت هذا اللي لو كنا نقول الشيخ عبد الرحمن حسين سمتر oo kamid ah xubnaha golaha adeega garsoorka ayaa isaguna sheegay in Soomaaliya maanta ay marayso marxalad muhiim ah oo ay tahay inay kala doorato garsoor madax banaan iyo garsoor xukuumadda u adeega wadadana u xaara inaan garsoor madax banaan dhisano oo ka ilaahay ma ogi iyo qaanuunka oo iyo mid kale aan ka haysanin oo baqanin inaan dhisano taas labada waa inaan kala doorano oo saacan maanta haysana wixii kala dhamaystiray ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed culimadooda aqoonyahanadooda labada mid raacan ama xukuumaddu hayna haysato ama garsoor madax banaan samaysan labada mid waxaan ma jiro ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare Abukaata Ciidiidilka Xanaf ayaa waxa uu sheegay in goloboodu ay sharci ahaan aqoonsan yihiin xiriiraalihii hore oo dacwad iyaga u soo qadimay kadib markii xafiiskiisa xoog looga wareegay garsoorihii hore xiriiraaliya ku magacaawna uu jooga waa jira dacwada uu leeyahay waayo xafiiskiisa sidoo riiba xog lagu qaado xiriiraalihii xog laga qaado marka dacwadu ka kale maxkamadda sare weli taala dacwada uu leeyahay waa maxkamadkiisa waa xog baa lagaga qaaday وسيدنا مقال قول بميتنا اللي يلعب مقعده قول بميتنا وسافيه ملاحظة فعليه بيجيه عنده ربع والمقعده الصور ما يقول الصور ولا عليك الصور وكل ما استمال الذكاء نورد الحكومات يكاد
baarlamaanka wala timaad ayaa magacaaba kasoo orabo codkaasi xaydidilka xanaf waxa uu ugu dambeeyay warbixintii wariyahayaga Maxamed